Asalaamu calaykum kusoo dhawaada qaybtii sagaalaad marka qaybtan waan dhamaystireynaa calculator appkan marka qaybtii sideedaad waxaan ilowna inaan buttonkan bedelno colorka inaan bedelno oo aan ka dhigno madow colorkan kuwa kale inay cadaan noqdaan marka saas isla markii waa samayn karnaa haddii aan aadno calculator model hodhowtii waxaan u baahannahay buttonka inaan bedelno kan waa background color laakiin waxaan rabnaa taxi color marka waxaan sameynaynaa saad waqti u save garayno copy aan dhehaynaa kan kabacdi waxaan dhehaynaa text actually waxaan dhehaynaa text background color marka taxigan haddii aad aragtid kuwan bas ayaa madow ah laakiin inta kale waxa weeye cadaan marka waxaan dhehaynaa hadduu buttonka yahay AC plus minus iyo percent sign madow soo saar ayaan dhehaynaa marka waxaan dhehaynaa return black inta kale waxaan dhehaynaa just default kuwan delete ayaan iska dhehaynaa uma baahnin kabacdi waxaan dhehaynaa return color is white marka kan ayaan bas naga maqnaa marka haddii aan buttonka by default haddii aan color haddaana color siinin optional way kan marka haddaana color u baasin default wuxuu noqonayaa white marka hadda kan delete ayaan iska dhehnaa kabacdi screenka ayaan aadaynaa marka meeshii fab buttonkan color ayaan siinaynaa text color marka waxaan dhehnaa calc dot text background marka haddii aan hot restore haddaa dhahno markaas colorka waa inuu isbedelaa hadda marka kuwan madow weeye inta kalena waa cadaan marka waxaan sameynaynaa hadda calculatorka okay weye marka waa inaan maaragtay operationka waa haddii aan numberka taabano waa inaan bedelnaa numberka soo qornaa marka haddii aan maaragtay inta ku dhufano let's say waxaan haysanaynaa waxaan u baahannahay variable aan maaragtay ku hayno resultiga markasta aan userka geliyo numberka taabto waxaan u baahannahay variable aan result ku hayno marka waxaan dhehaynaa string result equal empty so we initialize result to empty marka haddii aad aragtid meeshan warning ayuuna siinayaa wuxuu dhahayaa this class or a class that this class inherits from is marked as immutable but one or more of its instance field are final marka waxaan isticmaalaynaa dhibka waxa weeye waxaan isticmaalaynaa stateless widget ayaan isticmaalaynaa laakiin haddii aan rabno inaan wax bedelno waa inaan isticmaalnaa stateful widget waayo stateless widget immutable waaye oo maaragtay wax ma bedeli karno marka haddii aan maaragtay appbar isticmaalno appbarkaas throughout the maaragtay program waa isma bedelayo sidoo kale maaragtay align ama taxiga kuwan programka saa u wadna isma bedela laakiin waxaan rabnaa markii aan maaragtay batanadan markii aan taabano aan rabno inaan isku tartarno inaan bedelno stateka ama programka saan maaragtay wax maaragtay aan maaragtay calculationka usii wadano laakiin anaka waxaan isticmaalaynaa stateless widget marka stateless widget saas nooma ogolaanayo marka waa inaan ku bedelnaa stateless widgetkan oo aan isbedelayn waa inaan ku bedelnaa stateful widget marka haddii aad ku dhufatay inta wuxuu arrowgan light bulbigan ayaan ku dhufanaysaa kabacdi waxaad dhehaysaa convert to stateful widget hadda stateful widget markaan ku bedelno waxaan haysanaa stateful widget oo maaragtay oo sameynaysa maaragtay stateka appka ku jiro kabacdi waxaan marka home pagekan waa private weeye oo maaragtay wuxuu maaragtay extends ama inheritance wuxuu ka sameynayaa state of the hour app which is the home page marka appkan hadduu isbedelo haddii aan wax taabano uu isbedelo kabacdi stateka uu isbedelayaa marka haddaan 7 ku dhufano oo 7 ayuu soo saaraya marka uu isbedelayaa marka saas marka waxaan marka haddii aad marka sidee u isticmaalaysaa stateful widget iyo stateless widget marka
it depends marka haddii oo maaragtay uusan widgetka isbedelayn oo haddaa wax ku dhufatid ama button haddaa ku dhufatid hadduusan isbedelayn waxaad isticmaali kartaa stateless widget laakiin haddii aad rabto inuu wax isbedelo ama button markaad daawatid hadduu wax rabo inuu isbedelo screenka soo saaraysid waa inaad isticmaashaa stateful widget marka hadda marka buttonkan 90gan waa ku bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa result ayaan ku bedelaynaa kabacdi haddii aan hot restart haddii aan dhahno resultigan hadda 0 weye laakiin waxaan rabnaa markaan taabano maaragtay inaan 7 soo dhigno marka waxaan aadaynaa meeshii on press waa on press weye marka on press marka each button aan taabano waxaan rabnaa inaan soo gelino number marka waxaan dhahnaa stateful marka waxaan dhahnaa set state marka stateful marka isticmaalisid wuxuu ku siinayaa set state marka set statekan haddii wax isbedelaan maaragtay widgetka dhan ayuu maaragtay wada mar labaad rebuild ku sameynaya ama wada dhisaya mar labaad haddii wax isbedelaan marka waxaad ku qoran notifies the framework that the internal state of this object has changed marka haddii oo maaragtay stateful marka isticmaalayno haddaa rabna in waxaan taabano hadduu rabo inuu isbedelo waa inaan isticmaalnaa set state hodhaduu isbedelaya marka waxaan sameynaynaa resultiga ayaan waxaan assignment ku sameynaynaa waxaan dhahaynaa for example we're getting the title right so waxaan dhahaynaa calc.title marka haddaan 7 ku dhufano 7 ayaa soo baxaya haddaan 8 ku dhufano 8 ayaa soo baxaya haddaan 9 ku dhufano 9 ayaa soo baxaya 5 haddaan ku dhufano 5 ayaa soo baxaya ac haddaan ku dhufano ac ayaa soo baxaya marka wax kasta ku dhufano ayaa soo baxaya meesha so hadda waxaan rabnaa maaragtay inaan function qorno functionkaas aan meeshaan uga wacno markasti ee wax isbedelaan aan functionkan aan ugu wacno saan maaragtay update u dhahno UI-ga oo hodhowtii wax kastaa taabano haddii aan laba number haddaan rabno inaan isku darno saan hodhowtii functionka u wacno marka waxaan sameynaynaa kan ayaan iska remove ayaan dhahaynaa kabacdi function ayaan create garaynaynaa ama method marka functionkaas ama methodkaas waxaan ugu wacaynaa update UI kabacdi functionka parameterka marka kan waxa weeye void parameter way laakiin waxaan rabnaa functionka gudihiisa inaan maaragtay daara ugu baasfareyno daaradaana waxa weeye buttonna haddaa aragtid waxa weeye typekiisa waxa weeye buttonis weeye marka waxaan ugu baasanaa buttonis ayaan ugu baasanaa actually just passing button kabacdi semicolon marka functionkan hadda error ayuuna siinaa wuxuu dhahayaa this method UI is not defined for the type homepage marka wuxuu dhahayaa methodkan maana define ama maadan qorin marka waa inaan define waa inaan dhahdaa functionkan wuxuu yahay marka waa soconaynaa dhinacan hoose under your widgetka maaragtay gudihiisa under your build widget ayaan maaragtay inta ayaa qoraysaa functionkan marka void weeye wax return ma dhahayo marka kabacdi magaciisana waxa weeye update UI marka waxaan dhahnay functionkan wuxuu qaadanayaa button type buttonis kabacdi buttonis error ayuuna siinayaa we need to import console ayaan qoraynaa okay marka functionkaas update marka import ayaan dhahaynaa functionkan ama buttonkan kabacdi waxaan isticmaalaynaa switch case right switch casekan wuxuu qaataa waxa weeye buttonis weeye caseka marka buttonadan waxaan rabnaa button kasta aan taabano haddii aan taabano AC waxaan rabnaa clear inaan dhahno meeshaan tirtirno plus minus haddaan ku dhufano waxaan rabnaa negative ama minus sign inaan maaragtay hore gelino modulo ama percent signkan haddii aan ku dhufano waxaan rabnaa numberka
inaan divide by 100 ku dhufano saan hodhowti numberka ugu bedelno maaragtay percent divide-na haddii aan ku dhufano waxaan rabnaa divide hodhowti labada number inaan maaragtay divide dhahno oo maaragtay u kala qaybino multiplication-kana waxa weye haddii labada number aan multiplication ama isku dhufano saan maaragtay multiply u sameyn sidoo kale plus minus iyo ayagana ama aan ka jirno ama aan maaragtay isku darno marka waxaan dhahnaa buttonis .ac first muhiimadda waxa weye inaan qorno case kabacdi waxaan dhahnaa buttonis ac marka caseka hadduu yahay ac waxaan rabnaa numberada inaan kala gareeno iyo resultiga marka waxaan dhahnaa result equals empty string marka haddii aan refresh dhahno markasta ac-ga ku dhufano numberada clear ayuu dhahayaa okay hadda numberada ma heli karno marka waxaan rabnaa function inaan qorno saan maaragtay numberada u heli lahayn oo functionka u sameyn marka waxaan rabnaa button kasta maaragtay aan taabano numberada bes inaan inta soo gelino oo maaragtay kuwan kalena aana wax soo gelin marka inta ayaan ku dhufanaynaa haddaa xasuusatay title ayaan sameynay titlekan waa number kasta weeye right saan maaragtay ugu helno magacyada waxaas marka hadda titlekan ayaan copy dhahaynaa saan waqti u save garayno marka waxaan dhahaynaa numbers ayaan magac ayaa bedelaynaa waxaan dhahaynaa numbers hodhowti numberada waxaan sameynaynaa numberada 0 to 9 iyo dot ayaan isticmaalaynaa marka kuwa kale delete ayaan dhahaynaa marka dhinaca ac iyo minus iyo plus one delete ayaan dhahaynaa iyo equalka waa iska saaraynaa marka waxaan rabnaa numberada ka bilaabanaya 0 iyo 9 up to 9 iyo dot wixii kale oo aan ahayn numberana ama dot wixii aan ahayn waxaan dhahaynaa empty string soo saar marka waan ku laabanaynaa kabacdi waxaan dhahaynaa result plus equal calculator object calculator ayaan sameynaynaa kabacdi waxaan ugu baasaynaa buttonis button kasta aan maaragtay taabano hodhowti wuxuu noo soo saarayaa buttonkaa gaabanay numberkiis kabacdi waxaan dhahaynaa numbers hadda waxaan isticmaalnay shorthand ama qayb lasoo gaabiyey saan iskugu darno plus equal marka kan waxa weeye maaragtay comment haddaan ka samo waxa weeye short hand concatenation number kasta maaragtay waa band ayaa dhahayna ama waa ku daraynaa waa sii raacsiinaynaa kii hore marka plus equal waa syntax oo maaragtay numberadii hore ayaa number kale kusii daraysaa oo hodhowti stringka waaye string weeye marka append ayaa ku dhahaysaa number kasta at the front marka for example hadduu numberku yahay 1 kaas ayaan waxaan kusii daraynaa 2 right 2 ayaan kusii daraynaa hodhowti 3 4 5 saas ayuu sii noqonayaa haddaan refresh dhahno hodhowti wuxuu dhahayaa 1 2 3 4 5 6 7 saas marka shorthand weeye kan so hodhowti number kasta aad maaragtay ugu sii dartid kuwii hore sidoo kale haddaa rabtid same thing in la samayso waxaad samayn kartaa result ayaa dhahaysaa hodhowti resultiga is result plus maaragtay objectigan aan sameynay right hodhowti marka saan iyo sidaan isku mid weeye marka waxay ku xiran tahay maaragtay sidii kuu fudud marka saas weye marka better practice waxa weye maaragtay saan ayaan ka fudud waa easy code weye marka plus equal ayaa dhahaysaa hodhowti object ayaan create karayn objectigan isla markii waan sameynay kabacdi markaan sameyn isla markii waan isticmaalnay laakiin haddaa rabtid waxaad samayn kartaa object ayaan dhahaysaa calc kabacdi calcias is waxa weye kan weye hodhowti objectiga markaan create sameyno right so create object
marka hore object ayaan sameynay, right? Objecti markaan sameynay hodhad waxaan isticmaalaynaa calc dot numbers. Sanna same thing way. Waa isticmaali kartaa haddaa rabtid, laakiin anaga waxaan sameynay kan iyo dotka isla markii hal meel ayaan ku wada sameynaysaa nusi isticmaalno. laakiin haddaa rabti inaad kala bixisid codeka oo first line aad dhahday marka hore object ayaan sameynayaa, kabacdi objectigan waxaan isticmaalayaa dot operator. dotkaas wuxuu kusoo saarayaa method kasta uu leeyahay classkan ayuu kusoo saaraya saad usii isticmaashid. marka saasna waad sameyn kartaa. marka haddaan refresh dhahno hot restart haddaa dhahno horoti number okay waa isku sii wada daraynaa. haddaan AC taabanana clear ayaan dhahnaa number. marka waxaan u baahannahay markii aan AC-gan taaban number kasta inaan maaragtay initialize ama aan reset ku sameyno 0. marka intan ayaan aadaynaa, waxaan sameynaynaa marka hore variable oo ah number 1. marka variablekan waxa weeye number 1 weeye, another double waxa weeye number 2 waa numberka labaad. marka waxaan rabnaa numberkan marka ku dhufano plus hodhowtii numberka labaad aan kusii dhufano. marka laba number ayaan haysanaa. marka hodhowtii AC-ga marka AC ku dhufanona waxaan rabnaa numberadaas inaa maaragtay reset dhahno. marka number 1 is 0, number 2 waxa weeye 0, right? and 0 waa ku sameyn kartaa 0 waayo waxaan isticmaalaynaa explicit declaration. waan u sheeganaa waxaa numberkan waxa weeye taabkiisa double. laakiin haddaad isticmaalaysid maaragtay for, haddaad isticmaalaysid for example haddaad isticmaalaysid for number 1 is 0.0 waa inaad dhahdaa hodhowti suu ogaado numberka taabku yahay waxa weeye double. marka for keyword haddaad isticmaalaysid waa inaa initialize dhahdaa 0.0, right? laakiin waxaan isticmaalayaa explicit declaration. waa u sheegayaa taabku yahay inuu double yahay. this is a better practice. waa haddaa og tahay taabku yahay waa u sheegaysaa, waxaa dhahaysaa number 1 waxa weeye double. marka hodhowti dot markuu compile sameynayo wuu ogaanaya taabku yahay oo waa u sheegtay, adaa u sheegay. okay, so saas waa sameynay marka AC. marka hadda waxaan sameynaynaa plus equal. marka waxaan rabnaa haddaan ku dhufano case kan numberka inaan ka dhigno minus. ha ilaawin markasta dhamaysid waa inaad ku dhufataa break. kabacdi waxaa dhahnaa case button is plus minus. marka caseka hadduu plus minus yahay waxaan sameynaynaa first waxaan create dhahnaa char. kabacdi waxaa dhahnaa marka simple ayaan sameynaa minus. kabacdi waxaan dhahnaa result equals char plus result break. hodhowtii haddaan restart haddaa dhahno marka numberka haddaan kan ku dhufano minus ayuu intii soo gelinayaa minus 79. kabacdi 100 haddaa ku dhufano minus 100. hodhowtii haddaan dhahno minus 45 wax minus ayuu saarayaa, right? marka haddii aad hadda ogaatid numberka haddaad ku dhufano maaragtay 75 minus haddaa dhahno minuskuu badnaanayaa. laakiin saan ma rabna inaad sameyno waayo maaragtay ma rabna anad waxaan rabnaa 75 hal mar inaad ku dhufano. laakiin hadduu userka wax badan ku dhufto uma ogolaanayna inaad saan sameyno waayo qalad weeye. hodhowtii programka crash ayuu noqonayaa, hodhowtii cilad badan iyo waxaas ayuu yeelanayaa. marka waxaa fiican markastaad wax qoraysid maaragtay inaad broweysid inay wax shaqeynayaan saad hodhowtiin haddii aad maaragtay ciladii waxaa yimaadaan saad isla markii u sameynaysid. markastaad program sameynaysid test dheh browe si wax u shaqeynayaan. qalad samee break. marka waxaad sameynaysaa break the code ama maaragtay waa jebinaysaa saad u ogaatay cilad inuu leeyahay. marka hadda ciladuu leeyahay hadda minuska wuu badan yahay. marka waa inaan dhahnaa hadduu minus badan leeyahay hal haba inaan qaadano. marka waxaa dhahanaa if result dot markaa dhahdi marka stringka wax badan ayuu leeyahay is not empty
hadduu empty san ahayn ama is empty, starts with, contains with, ends with, length waxaan dhan ayuu leeyahay laakiin anad waxa u baahanahay starts with. marka waxaa dhahaynaa marka starts with wuxuu qaadanayaa primary oo maaragta pattern la dhaho waa u sheegaysaa maaragtay wixii aad rabtid inuu programka ogaado pattern waaye hodhowtii haddii maaragtay dotkiisa hadduu ka bilowdo hal dot ama laba dot ama saddex dot hodhowtii waxbaad sameynaysaa. marka waxaan dhahaynaa patternkan waxaa dhahaynaa string. marka waxaa dhahaynaa starts with two minus minus, right? marka waxaa dhahaynaa programka hadduu ka bilowdo laba xabo oo minus minusa waa tirtiraynaa labada xabo waxaan ku bedelaynaa hal xabo. marka waxaa dhahaynaa result equals result dot replace. also maaragtay wuxuu tutusinayaa string haddaa dhahdid stringka replace ayaa dhihi kartaa replace first bad left kuwo badan ayuu leeyahay substring split join. marka hadda waxaa rabnaa inaan isticmaalno kuwan waa practice waad ku samayn kartaa waxay sameeyaan laakiin hadda anaga waxaan rabnaa inaan bedelno hadduu ka bilowdo labadaas minus minus. marka primaryku qaato waxa weye from iyo replace. marka waxaa dhahaynaa replace marka from waxaa rabta inaad bedeshid weeye. marka waxaan rabnaa inaan bedelno labadan minus minuskan waxaan rabnaa inaan bedelno already replace maxaa rabtaa inaad ku bedeshid waxaan rabnaa inaad ku bedelno hal xabo oo minus kabacdi semicolon. marka waan akhrinaynaa programka suu shaqeynayo intaana run dhihin ama run ayaan dhahaynaa marka hore kabacdi resultiga fiirinaya inay wax shaqeynayaan. okay 79 wuu shaqeynayaa haddaa ku darno haddaa tataabano ma shaqeynayo hal xabo bas ayuu noo soo saaraya that's it. haddaa userka hadduu taataabto hal xabo mooya wax kale mana soo shaqeynayo, right? haddaa dhahno minus 10 mooyaan wax kale ma soo saarayo. okay siduu u shaqeynayaa okay waan akhrinaynaa. marka waxaan dhahaynaa resultiga waxaan replace dhahaynaa hadduu maaragtay variableka hadduu ka bilowdo resultiga hadduu ka bilowdo laba xabo oo slasha waxaa dhahaynaa result replace. waxaan replace dhahaynaa meeshuu ka bilowdo labada minus waxaan replace ku dhahaynaa hal minus kabacdi waxaan u dhiibaynaa resultiga saan u aragno hodhowti functionka inta ayaan ka bilaabanaa kabacdi set state uu isbedelayaa. haddaa xasuusatay set state waxaan dhahnay notify waxa weeye ogeysii the framework hadday wax isbedelaan. marka framework uu ogeysiinaya hodhowti update ayuu dhahaya saas ayuu shaqeynayaa. okay marka kaasuu shaqeynaya hadda clear waa dhahaynaa hodhowti minus badanna wuu leeyahay. okay good. maxaa kale hadda marka waxaan sameynaynaa presentigan haddaa ku dhufana waxaan rabnaa numberka 75 hadduu yahay mode waxaa dhahaynaa ku bedel present. marka waxaa dhahaynaa case buttons mode. marka waxaa dhahaynaa waxaa fiican local variable ayaan create dhahaynaa local variable. marka local variablekan available wuxuu yahay within maaragtay functionkan gudihiis ayuu maaragtay available yahay. functionkan wixii ka baxsan variablekan ma isticmaali karto. marka waxaa dhahaynaa double result res ayaan dhahaynaa kabacdi waxaan dhahaynaa 0.0 ama 0 waayo waxaan isticmaalaynaa double. laakiin haddaa rabtid waxaan isticmaalaynaa for waxaa dhahaynaa result kabacdi resultka initialize waxaa dhahaynaa 0.0. okay marka waxaa rabnaa resultiga inaan u dhiibno so resultiga ayaan waxaan ku haynaynaa. okay marka haddaad xasuusatid resultigan waxa weeye typekiisa waxa waaye string laakiin resultigan typekiisa waxa weeye double. marka waxaa rabnaa string inaan ku bedelno double. marka waxaa dhahaynaa double dot parse ayaan isticmaalaynaa. parse wuxuu qaataa string marka resourciga waxa weeye string waxaa dhahaynaa result kabacdi numberkaas ayaan waxaan divide dhahaynaa 100
hodhowti marka numberka hadduu yahay 75 divided by 100 waxa weeye 0.75 marka saas sameyno kabacdi resultiga ayaan u baas garaynayna waxaa dhehnaa hodhowti haddaa xasuusatid kan waxa weeye double resultigana waxa waaye string marka haddana waxaa rabnaa resultigan doublekan inaad ku bedelno string marka really simple waxa weeye waxaa dhehnaa result dot to string and then hodhowti waxaa dhehnaa break okay so let's hot restart okay so 75 haddaan nahno aan ku dhufano kan numberka ayuu bedelayaa oo wuxuu dhahay divided by 100 hodhowti haddaan haddana mar labaad ku dhufano 100 ayuu haddana kusii bedelayaa haddaan kusii dhufano oo kuwad wadna maad saas ayuu soconayaa numberka right so haddaan dhahno 100 divided by 100 waa 10 waa 1 divided by another 100 is 0.1 divided by another 100 is 0.001 divided by another 100 is 0.00 you get the idea right okay another function aan isticmaali karno waxa weeye to fixed right marka hadda waxaan sameynaynaa digit numberka waxa weeye 2 wax 2 ka badan hana siina ayaa dhahnaa marka restart haddaa dhahno 75 hodhowti numberada kama badnaanay 2 hadduu 2 ka badan 00 marka we don't want this marka hodhowtaa kusoo laabanaynaa so for now waxaa dhahaynaa precision right marka haddaad ku dhufano precision wuxuu kuu sheegayaa waa kaa so to string precision 1 way 1.5 haddii aad rabti 1 to the power 1 to 15 hodhowti precisionka waxa waaye 2 labo ayuu ku siinayaa kabacdi plus 15 right marka hodhowti waa probayn kartaa practice ayaa ku sameynaysaa hodhowti practice saa u fahantid okay so waan sameynay kuwan hadda numberka clear ayaan dhahaynaa kabacdi numberka minus ayaan ku sameynay kabacdi okay we're good hadda waxaan rabnaa inaan sameyno divide multiply minus plus okay marka hore waxaan sameynaynaa we created double iyo laba number ayaan sameynay hadda waxaan rabnaa inaan ogaano when to add subtract multiply iyo divide sidee ku ogaanaynaa userka hadduu rabo inuu divide dhaho ama multiply dhaho ama plus minus saas waxaan ku ogaan karnaa haddaan isticmaalno bool so bool waxaan dhehnaa is add right now waxa weye false initialize ayaan waxaan ku dhehnaa false kabacdi bool is multiply initialize waxaan ku dhehnaa false bool is divide kabacdi waxaan dhehnaa false hodhowti waxaan dhehnaa add multiply divide bool is minus ama subtract hodhowti waxaan dhehnaa false okay marka hadda boolean ayaan haynaa wuu noo sheegayaa haddii aan maaragtay buttonka uu yahay plus haddii plus yahay hodhowti waa isku daraynaa hadduu maaragtay minus yahayna waa ka jiraynaa divide iyo multiplyna hadduu yahayna sidaas ayaa sii sameynaynaa marka waa maaragtay waa u kala qaybinaynaa hadduu divide yahay aan multiplyna hadduu yahay waa isku dhufanayna okay marka waxaan rabnaa inaan sameyno another case so case waxaa dhahaynaa button is add so buttonka hadduu add yahay laba number ayaan rabnaa inaan maaragtay isku darno marka hore waa inaan ogaanaa numberka koowaad iyo numberka labaad marka simple way si fudud ayaan ku sameyn karnaa kaas waxaan isticmaalaynaa if marka numberka koowaad hadduu maaragtay numberka koowaad 0 hadduu yahay marka waxaa dhahaynaa number 1 waxa weeye result hodhowti resultigan haddaa xasuusatay waxa waaye string marka waxaan rabnaa inaan ku bedelno
marka waxaa dhahaynaa double the parse kabacdi waxaa dhahaynaa result else hadduusan number one hadduusan zero ahayn waxa weeye numberkan waa la qaatay already oo numberka waa la toortay marka waxaan rabnaa inaan isticmaalno number 2 equals double the parse result. Okay, so hodoti waxaan dhihi karnaa print just waa probaynayna hadduu shaqaynayo marka waxaan dhahaynaa number 1 equals number 1 kabacdi hadduu numberka 2 hadduu yahayna waa probaynayna waxaan dhahaynaa number 2 equals number 2 number 1 is 1 kabacdi haddaan number 2 taabanana wuxuu soo saarayaa aan plus dhahno number 2 is 12 waayo haddaa xasuusatid numberka labada number ayaan isku daraynaa oo append ayaan dhahaynaa 12 ayuu noqonaya marka functionkan waxaan isticmaalaynaa markasta oo maaragtay ay tahay plus minus waxa hadday tahay marka waxaa fiican inaan refactor dhahno codeka saan hodhowti maaragtay aan markasta u isticmaalno marka waxaad ku dhufanaysaa highlight ayaa dhahaysaa programkaada highlight markaa dhahdid waxaad ku dhufanaysaa meesha ay dhahayso extract method ayaad ku dhufanaysaa methodka waxaa dhahaysaa initialize numbers ayaa dhahaysaa hodhowti initialize numberka ayuu kuusoo sheegayaa marka within functionkan gudihiisa ayaan waxaan functionkan markaa soo dhaafna ayaan kan qoraynaa initialize numbers kabacdi waxaan dhahaynaa add is true waayo numberka ayaan taaban waayo markaan add dhahno numberka ayaan taaban marka waxaan sameynaynaa break ayaan dhahaynaa break markaa dhahno kabacdi let's go to case buttons equal marka equal signka waxaan sameynaynaa waxaan dhahaynaa if is add numberka hadduu add yahay marka numberka hadduu add yahay waxaan dhahaynaa number 2 ayaan dhahaynaa equals double the parse result right hodhowti waxaan dhahaynaa result equals resultiga waa kan weeye I'm trying marka resultigan iyo kan kale it is confusing waa ku wareereysaa marka magacan ayaan bedelaynaa waxaan dhahaynaa refactor ayaan ku dhufanaynaa kabacdi waxaan dhahaynaa result operation kan useful name weeye marka rename ayaan dhahaynaa marka result operationkan waxaan sameynaynaa waxaan isku daraynaa number 1 plus number 2 kabacdi waxaan dhahaynaa print added numbers result is equal result operation okay marka waa probaynayna inuu shaqaynayo marka waxaan dhahaynaa row lagu daray 2 equals we get error it says that plus was called on result okay dhibka waxa weeye plus ayaan haysanaa
marka waa inaan clear dhahnaa marka waxaa dhahaynaa initialize-sanka markaa dhahno oo nambarada markaa sameyno waxaan dhahaynaa result equals empty waa tirtiraynaa resultiga empty ayaan ka dhiganaa marka waa fiirinaynaa inuu shaqeeyo marka 1 hataa plus taaban waa inuu tirtiraa okay 2 equals 3 taas ma shaqeynayso marka no, so the plus method class was called on a null markaas ku darna null weeye waayo labadan number mid un ayaad null ah marka inaan ogaano waa midkii nullka ah marka dibka waxa weeye maaragtay markaan 1 haddaan ku dhufano kabacdaan plus dhahno number 2 ayuu print soo dhahayaa marka conditionkan ignore ayuu dhahayaa oo conditionkan ma soo print garaynayo conditionkan ayuu soo print garaynayaa hodhowt markaan plus markaan dhahno number 2 aan equal dhahno mid ayaa null ah marka dibka waxa weeya maaragtay markaan qorayno programka initialize waxba macna dhihin marka we have to initialize to 0 kana waa inaa initialize ku dhahnaa to 0 marka hadda run haddaan dhahno problemka ama dhibkana haysto waa hadda waa sameynay si ay la tahay marka waan probaynaynaa marka kow haddaan dhahno kabacdi ama plus ku dhufano 1 ayaa hadda soo print garaysmaya oo waa conditionkan hadda okay weeye oo 1 ayaan soo print garaynay 1 plus 3 equals hadda numberka ayaan soo print garaysmay oo 4 weeye marka hadda wuu shaqaynayaa labada number wuu shaqaynayaa okay marka waxaan sameynay conditionka hadduu add yahay numberka ayaan labada number ayaan isku daraynaa number 2 resultiga ayaan kasoo qaadanaa oo waxaan dhahaynaa 4 waa number 2 weeye right saan hodhowti u helno maaragtay numberkan marka waxaan dhahaynaa resultiga hadduu number 2 yahay hodhowti waa kasoo qaadanaa hodhowti result operationka number 1 number 2 ayaan isku daraynaa kabacdi print ayaan dhahaynaa hodhowti add waxaan reset ayaan dhahaynaa hodhowti false ayaan ku bedelaynaa hadduu true yahay false ayaan ku bedelaynaa right so hodhowti u shaqeeya programka okay so kaasuu shaqeynayaa hadda markaan dhameyno programka at the end waa inaan dhahnaa break waa inaan dhahnaa break okay marka conditionka sax wey kan haddii aan dhahno if is multiply hadduu multiply yahay sidoo kale waa inaan dhahnaa saan sameynay waa inaan maaragtay number 1 number 2 waa inaan sameynaa marka hore waa inaan dhahnaa case button is multiply hadduu yahay marka hore initialize number ayaan wacaynaa kabacdi waxaa dhahnaa is multiply is true haddii aan numberka taabano multiply hadduu yahay true ayaan ka dhiganaa saan hodhowti break aan dhahaynaa markaas sidoo kale waxaan sameynaynaa maaragtay minus iyo divide ayaan sameynaynaa marka waxaa dhahaynaa hadda waxaan sameynay add hadduu yahay initialize aa dhahaynaa numberada kabacdi true ayaan ka dhiganaa add sidoo kale multiply initialize kabacdi is multiply is true sidoo kale divide initialize number and then is divide is true right hodhowti waxaan dhahaynaa is initialize kabacdi is subtract is true okay marka hadda waxaan dhahaynaa numberka hadduu yahay multiplication sidoo kale waxaan dhahaynaa numberka maaragtay number 2 right sidoo kale number 2 waxa weeye resultiga maaragtay ayaan soo qaadaynaa kabacdi waxaan dhahaynaa result operationka
ayaan isticmaalaynaa kan waxa waa local variable aan update ku sameynayna markasta oo maaragtay multiply hadduu yahay iyo divide horit waxaan dhahayna number 1 times number 2 right kabacdi waxaan dhahaynaa is multiply false kabacdi hadduu true yahay waxaan ku bedelaynaa false right marka print ayaan dhahaynaa marka waxaan dhahaynaa multiplied numbers results are equal numbers marka waa proweynayna hadduu shaqeynayo marka waxaan rabnaa inaan dhahno 5 times 5 waa inaan helnaa 25 waa sax weeye marka hadda waxaa naga maqan inaan maaragtay update ku sameyno number resultiga marka waxaan dhahaynaa result equals result operation dot to string marka haddaan restart dhahno aan dhahno 4 times 4 waxaan helaynaa 16 right sidoo kale add inaan dhahnaa result equals result operation dot to string marka waxaan dhahnaa hot restart kabacdi haddaan rabno 8 plus 8 waan inaan helnaa 16 right okay waa hadda so far so good marka hadda waan haysanaa waxaan sameynay multiplication add marka hadda waxaan rabnaa inaan sameyno divide marka waxaan dhahnaa if is divide hadduu divide yahay sidoo kale number 2 ayaan soo qaadanaynaa number 2 gaas waxa weeye maaragtay double the parse and result kabacdi horadii result operation ayaan dhahaynaa kabacdi waxaan dhahaynaa number 1 divided by number 2 kabacdi waxaan dhahaynaa is divide equals false right horadii waxaan dhahaynaa result operation equals not result operation result equals result operation dot to string right so hadda waa proweynayna so haddii aan dhahno 49 divided by 7 we should get 7 yeah it's working last one waxa weeye if is subtract haddii subtract true haddee tahay kabacdi number 2 ayaan soo qaadanaynaa number 2 gaas waxa weeye result double the parse result right kabacdi waxaan dhahaynaa result operation equals number 1 minus number 2 kabacdi result equals to string haddaan restart dhahno 15 minus 10 is okay we get some error dhibkeen waxa weeye markaan dhahno 15 minus 10 waan inaan helnaa 5 laakiin 10 ayaan helaynaa dhibka waxa weeye equal numberadan dhan waxaan dhahnay waa number 1 ayaan waxaan put same ama equal ayaan ka dhiganaa number 2 marka whatever value waxay tahay ayaan kan ku haynaynaa marka
qaladka saas meeshaas ayuu ka yimid marka of course equal maaha waa subtract way minus way marka haddaan restart dhahno waa inuu noo shaqeeyaa marka haddaan dhahno 15 minus 10 waxaan helaynaa 5 marka hataa haddii aan rabno inaan kasii wadno calculationka meesha marayso haddii aan dhahno times 5 waxaan rabnaa maaragta resultiga inaa ama natiijada maaragta inaa kasii wadno meeshii uu userka oo calculationka ama sii wado marka inaa saan saxno waa hadda 5 haddaan hataa nambaro kale kusii wadno manoo shaqeynayo marka inaa saxno waaye gaas marka waxaa aadaynaa hadda resultiga ayaan haysanaa kabacdi resultiga markaan helno resultigaas ayaan waxaan ka dhigaynaa number 1 ayaan ka dhigaynaa marka waxaa dhigaynaa number 1 waxa weeye double the bars result ayaan ka dhigaynaa number 1 haddana kan result ma waxa weeye result operation weeye kabacdi waxaan ka dhigaynaa sidoo kale maaragtay number 1 waxaan dhigaynaa waxa weeye maaragtay double the bar not infinity but bars and the result right marka copy ayaan dhigaynaa kan kabacdi sidoo kale inta number 1 ayaan kasii dhigaynaa subtractionka intana number 1 ayaan kasii dhigaynaa horoti saan calculationka usii wadno marka waa fiirinaynaa haddii shaqeeyo hadduu maaragtay shaqeeyo marka haddii aan dhahno 15 minus 10 waa 5 times 5 waa 25 kaas haddii aan ku darno 10 waa inaan helnaa 35 marka wuu noo shaqeynayaa 35 kaas haddii aan maaragtay 8 divided by 8 haddaan dhahno waa helaynaa horoti subtract haddaan dhahno aan horoti aan ku darno 4 kan hadda negative ayaan gelinay meesha negativekiina ma shaqeynayo marka kaas inaan sameyno waaye next waxaan rabnaa inaan sameyno hadda haddaa maaragtay plus minuskan haddaan maaragtay ma noo shaqeynayo marka waxaan sameynaynaa if we go waxaan dhahaynaa number 1 equals double the bars result okay hadda restart hot restart ayaan dhahaynaa kabacdi haddii aan dhahno 75 plus 10 for example aan horoti divide dhahno waa maxaweye haddaan maaragtay ka dhigno negative aan ku darno for example haddii aan ku darno 10 waana hadda waxaan helnay negative 6.5 wuu saxsan yahay haddaan times 8 dhahno waa inaan negative 5 helnaa horoti 5 kaas haddaan kasii jirno another negative 5 we get error wuxuu dhahayaa invalid double minus okay marka qalad waxa weeye haddii aan restart haddii aan dhahno horoti minus haddaan ku dhufano errorka ayuu noo soo saarayaa marka qaladka wuxuu ka imaanayaa meeshan weeye oo maaragtay sababta waxa weeye numberkan ayaan maaragtay waxaan u dhiibaynaa minus sign ayaan u dhiibaynaa marka saas ma rabno inaan sameyno marka waxaan dhahaynaa if ayaan dhahaynaa if result dot length marka lengthiga ama inta maaragtay resultigan hadduu maaragtay lengthiga ka badan yahay 1 kabacdi waxaan dhahaynaa markaas ayaan maaragtay number 1 ayaan u dhiibaynaa resultiga wuxuu yahay laakiin resultiga hadduu yahay lengthiga hadduu yahay 0 for example haddii empty tahay marka hore uu resultigan waxba lahayn sida san camal horoti kan ma shaqeynayo marka hadda wuu noo shaqeynayaa marka haddii aan dhahno minus hadduu shaqeynaya our programkina crash ma dhahayo marka cilada meeshaas ayay ka imaanaysaa marka haddii aan dhahno 10 plus 50 horoti haddaan dhahno negative 60 plus 30 waxaan helaynaa negative 30 divided by 8 waxaan helaynaa negative 3 haddaan multiply by negative
3 haddaan helno waa inaan helnaa positive marka hadda wuu noo shaqeynayaa hadda waxaa dhiman haddii aad aragtid waa probaynaynaa programka for example haddii aan dhahno 10.5 plus 0.5 waxaan helaynaa 11 okay wey laakiin haddii aan dhahno plus 0.00 mujeda too many dot ayaa jira horudii our programkina crash ayuu noqonayaa marka waa inaan saxnaa saan qalad weeye oo ma rabno inuu maaragtay userka maaragtay inuu dot badan inuu sameeyo ma rabno marka saan waa inaan saxnaa marka waxaan sameynaynaa function ayaan qoraynaa marka haddii aan hoos usoo socono marka functionkan return typekiisa waxa weeye string kabacdi functionkan private weeye waxaa dhahaynaa does contain dot marka functionkan primaryka ama wuxuu qaadanaya waxa weeye string result ayaan dhahaynaa marka stringkan waa mid aan u baasayna waa anakaa u baasayna saan hodhoodii u sameyn marka maxaan rabnaa inaan sameyno marka laba case ayaa jira marka caseka koowaad waxa weye hadduu userka dhaho boqolaal dood hadduu sameeyo hodhoodii dhaho 0.5 saan qalad weeye marka waa inaan kan saxnaa sidoo kale ma rabna userka inuu dhaho 0.5 kabacdi another dot marka kanna khalad weeye marka laba case ayaan leenahay caseka koowaad waxa weye hadduu ka bilowdo laba dot iyo haddii oo maaragtay programkeena markaan saan dhahno 105.99 kabacdi dot kale inaad sii raacayna ma rabno marka saas inaad saxna weeye marka waxaan sameynaynaa function ayaan qoraynaa marka functionkan waxaa dhahaynaa marka hore haddaan wax dot helno counter ayaan sameynaynaa marka waxaa dhahaynaa counter of how many times we see dots marka counterkan variablekan seen dot ayaan dhahaynaa marka ugu horeyso initialize ama waxaan ku abuuraynaa inay 0 tahay intaan mar aan aragnay dot maaragtay waxa weye 0 marka counterkan markastaan aragno hal dot kan waxaan ku taraynaa hal ayaan ku taraynaa add 1 markastaan aragno dot hal ayaan ku taraynaa marka hore caseka koowaad waxa weeye hadduu ka bilowdo laba dot hadduu ka bilowdo saas camal hadduu rabo inuu userka khalad weeye marka waa inaan qabanaa haddii saan dhacdo marka waxaa dhahaynaa if result dot starts with haddaad xasuusatay waxaan isticmaalnay starts with oo baarankan wuxuu qaadanayaa wixii aan anaga u sheegna program marka waxaan dhahaynaa programka hadda ama userka hadduu laba dot hadduu geliyo saan khalad weeye marka waxaan dhahaynaa labadaa dot waxaad ku bedeshaa hal dot marka waxaan dhahaynaa result dot replace all ayaan isticmaalaynaa kabacdi waxaan dhahaynaa laba dot replace waxaan ku dhahaynaa hal dot marka haddaad xasuusatay waa sidii hore le waaye marka labadan dot aan aragno ayaan u bedelaynaa hal dot kabacdi does contain result ayaan u baasanaa marka saan markaas sameyno markaan saan qorno kabacdi waa functionkan ayaan mar labaad wacaynaa isla functionkan gudihiisa kan waxa weeye maaragtay recursive weeye recursive marka same function maaragtay functionkan ayaan waxaan wacaynaa variablekan ayaan u dhiibanaa haddana isla markii functionkan ayaan wacaynaa marka recursive call weeye kan marka same functionka isla magaca isku mid waaye waan u baasanaa markaan ka saarna labada xabo marka kan waxa weeye case 1 weeye casekii koowaad weeye marka case 2 waxa weeye maaragtay case 2 waxa weeye markii aan maaragtay markuu userka dhaho 10.5 kabacdi hadduu wax kale dheeraada sii geliyo kan khalad weeye ma samayn karna saan marka hal dot ayaan reebanaynaa inta kalena waa tirtiraynaa
si hodhowta userka wax badan uusan u gelin markasta aan aragno wax kaloo dheeraada waa tirtiraynaa ma ogolaanayno ama ma aqbalayno hadduu userka wax kalan sii geliyo marka waxaa dhahaynaa casekan labaad waxaan isticmaalaynaa loop for loop marka casekan labaad waxaan isticmaalaynaa for loop marka waxaa dhahaynaa for int I equals 0 right I waxay ka bilaabanaysaa 0 I waxay ka yar tahay inta maaragtay number aan haysano lengthiga kabacdi I plus plus ayaan dhahaynaa kabacdi waxaan dhahaynaa waa marka hore waa fiirinaynaa ama waan ogaanaynaa haddii aan dot haysano ayaan ogaanaynaa inaan dot haysano marka waxaan dhahaynaa if result I dot contains hadda waxaan isticmaalaynaa contains marka contains wuxuu sameynayaa so wuxuu bool weeye true ama false ayuu soo saarayaa marka whether this string contains a match of others marka containkan wuxuu fiirinayaa waxaan u dhiibno pattern wuxuu qaadanayaa waa patternkan wuu fiirinayaa dot inuu leeyahay resultiga wuxuu ka fiiraya inay ku dhex jirto dot ayuu fiirinayaa kabacdi haddee dot ku dhex jirto waxaa dhahaynaa waan aragnay dot marka waxaa dhahaynaa scene dot plus plus ayaan dhahaynaa marka hal ayaan ku daraynaa add one to scene dot ayaan dhahaynaa sidoo kale waxaa dhihi kartaa if you want you could say scene dot equals scene dot plus one labadan code waa isku mid weeye marka kana waxa waaye shorthand weeye oo maaragtay scene dot plus plus ayaa dhehaysaa ama san ayaa dhehaysaa isku wada mid weeye labadoodaba marka waxaan isticmaalaya kan ayaan isticmaalaya haddana waxaan check garaynaynaa hadda kan waxaan wadaynaa inta maraan aragno dot kabacdi waxaa dhahaynaa if scene dot is greater than 1 and result I dot contains dot saas hadday tahay marka haddaan aragno dot hadduu dot uu ka badan yahay hal jeer kan wuxuu sheegaya inaan aragnay hal dot kabacdi indexiga ama current I aan ku dhex jirno hadday tahay dot saan camal hadday dotkan tahay kabacdi waxaan dhahaynaa result ayaan dhahaynaa resultiga waxawaa result dot substringkan wuxuu ka bilowdaa wuxuu leeyahay start meeshuu ka bilowda iyo end meeshuu ku dhamaado marka waxaan ka bilaabaynaa 0 wuxuuna ku dhamaanayaa I kabacdi break ayaan dhahaynaa break marka wixii kaloo dheeraada waa delete ayaan dhahaynaa uma baahnin kuwaan dhan wada delete ayaan dhahaynaa loopka markaan ka baxno loopkan break markaan dhahno waxaan rabnaa inaan dhahno return result okay marka haddaan kusoo celiyo waxaan sameynayno marka scene dotkan haddaan hal mar wax ka badan haddaan aragno dot hal mar ka badan for example markaan dhahno 10.5555 marka wixii ka badan maaragtay dotkan hadday ka badan tahay inta mar aan aragno kabacdi waxaan dhahaynaa substringka wuxuu ka bilowdaa 0 ilaa meeshaan ilaa intaan ayuu ku ekana wixii kaloo dheeraadana ma aqbalayno marka hadda wax yarisaan explain garanayaa substring okay marka for examples haddaan hayno string full name equals Mohammed Ali Hared okay marka haddaan dhahno maaragtay print marka waxaa dhahaynaa full name dot substring marka substring haddaa xasuusato wuxuu ka bilowdaa haddaan ku dhufano substring wuxuu ka bilowdaa wuxuu leeyahay start meeshuu ka bilowda iyo meeshuu ku dhamaado marka haddaan dhahno 0 to 7 haddaan dhahno aan hodhowtii aan semicolon dhahno marka 0 wuxuu ka bilowdaya 0 wuxuu ka dhamaanaya 7 marka waxa weeye 0 1 2 3 4
5 6 and 7 marka maxamed ayuu soo saaraya and it's giving me error because we're missing semicolon I mean curly braces marka maxamed ayuu soo saaraya marka substringkan wuxuu ka bilowdaa 0 7 ayuu ku dhamaadaa okay haddii aan rabno inaan soo print karayno ali waxaa dhahaynaa 8 to 11 marka waxaan ka bilaabaynaa 8 waxaana ku dhamaanaya 11 marka waan tirinaynaa marka waxa waye 0 marka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 okay marka saas ayaan soo saaray haddana la sii soco spacekan mark wuxuu spacekan xataa waa ku daraysaa haddaan ka saarno spaceka aan dhahno print horoti wax kaloo duwan ayaan soo print karayn waxaan soo print karaynana li marka spacekan wuu la saraacsan yahay marka substring saas ayuu shaqeeyaa marka meesha rabta inaad ka bilowdid iyo meeshu rabo inuu ku dhamaado marka saas ayaan sameynaynaa okay marka waxaan dhahaynaa functionkan ayaan u waceynaa meeshan waxaa uga waceynaa waa meeshan marka resultiga markaan helno numberka kabacdi waxaa dhahaynaa result equals contains kabacdi resultiga ayaan ku baasanaa now waa probeynayna inuu shaqeynayo in kale okay haddaan dhahno 0 pointyaal badan haddaan ku dhufana ma shaqeynayo 0 pointyaal kalena haddaan sii gelin ma shaqeynayo okay wuu shaqeynaya plus haddaan dhahno 10.5 right haddaad kuwa kale ku darnana ma shaqeynaysa saas hodhowta 11 ayaan haysanaa haddaan dhahno 10 haddaan clear dhahno 10 pointyaal badanna ma shaqeynayo marka hadda okay weeye hal mar bes ayaan dot isticmaali karnaa inta badanna ma isticmaalin marka our program is working how it should be marka hadda okay weeye wax kasta wuu shaqeynayaa one more thing aan raba inaa ku waxeyno before we finish is nambarada maaragta wuu sii soconayaa marka haddaa rabta only maaragta 3 dot haddaa rabta inaad isticmaashid waxaa dhihi kartaa an example aan ku tusinayaa hadda waxaan isticmaala precision ayaan isticmaalin oo 2 ah laakiin haddaa rabta waxaad isticmaali kartaa meeshaan dhahayno to string waxaa dhihi kartaa dot to fixed hodhowti waxaad tusinaysaa inta number haddaa dhahday 3 hodhowti waxaan multiplicationka markaan ku dhufano haddaan save dhahno aan hodhowti aan dhahno 10 times 9 waxaan helaynaa 3 number to the end hodhowti times 8 hodhowti 3 mooyaan in kale ma helayno marka waa isticmaali kartaa to string waxaan isticmaali kartaa to string as fixed you can use to precision marka intaas ayaan raba inaan tuso marka hadda calculatorka wax inkasta badanaa waan wada sameynay marka is good wax question haddaa qabtiina you can leave a comment marka thank you for watching and see you next video